madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa maanta ka ambabaxay dalka isagoo u sii jeeda dalka Rwanda gaar ahaan caasimadda Kigali waxaana uu kaga qayb qaadanayaa halkaasi shirka aan caadiga ahayn ee madaxda wadamada xubinta ka ah midowga Afrika qaybna ka ah aaga qaaradda Afrika ee wixii isweydaarsiga xorta ah oo ka furmaya caasimadda Kigali maalinta bari ee 22 bishani Mars madaxweynaha jamhuuriyadda waxa socdaalkiisa ku weheliyay wafti ballaaran oo kamid ah wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah naafayeenka xukuumadda iyo wasiirka ganacsiga iyo wasiirro kale waxaana dhabaha dawladda ku sii sabootiyay xubnaha xukuumadda oo ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdulqaadir Kaamil Maxamed iyo mas'uuliyiin kale oo iskugu jira rayid iyo military madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa caasimadda Kigali kaga qayb qaadanaya shir madaxeedka wadamada Afrika ee looga hadlayo waxay isweydaarsiga xorta ah ee ganacsiga marka magaciisa soo gabay loo yaqaano ZLEC sidoo kale soo dhaweey si sabootinta madaxweynaha jamhuuriyadda ee dhabaha dawladda waxa kamid ahaa gudoomiyaha golaha baarlamaanka oo ku sii sabootiyay dhabaha dawladda intii uu ku sugnaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele dalka waxa uu maanta la kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele oo qasriga madaxtooyada kula qaabilay wafdi senator ah oo ka socda dalka Faransiiska iyaga oo Djibouti ku yimid boqosho hawleed oo qayb ka ah cilaaqaadka dhaqaale iyo ka ganacsiga ka dhaxeeya labada dal iyo labada ummadood intii kulankaasi ay ku guda jireen waxa ay labada dhinac ay ka wada xaajoodeen hor u socodka ka muuqda xoojinta heerka dhaqaale iyo ka ganacsi ee kala dhaxeeya labada wadan waftigaasi oo uu horkacayo Mr Philip Paul waxa uu uga warbixiyeen hawlaha xubnaha gudiga senatarada in ay ka qaabilsan yihiin ama hawshoodu tahay arrimaha dibadda iyo difaacaynta intii isla kulankaasi waxa senatarada Faransiiska aad u soo dhaweeyay wada shaqeynta dhinaca dhaqaale ee labada dhinac ay aad u soo dhaweeyeen kulankaasi waxa uu joogay wasiirka gaashaandhigga qaabilsan xiriirka baarlamaanka mudane Cali Xasan Bahdoon xogayaha guud ee xafiiska madaxtooyada mudane Maxamed Cabdullaahi Wacaas iyo la taliyaha madaxweynaha oo qaabilsan dhinaca gaashaandhigga Colonel Mustafa Cali Xandulle iyo waliba danjiraha Faransiiska oo fadhiya Djibouti Mr Christophe Guyu kulankaasi kadib waxaana wareysi la yeelanay madaxa waftigaasi Mr Philippe Paul waxaana uu sheegay dareenkiisa farxadeed ee la kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele waxaana intaasi kadib ka waramay qodobadii looga hadlay kulankii ay la qaateen madaxweynaha jamhuuriyadda kaasoo ahaa mid ku saabsan dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga ee ka dhaxeeya Djibouti iyo Faransiiska sidoo kale waxa uu sheegay in ay rabaan sii xoojinta xiriirka iyo iskaashiga saaxiibtinimo ee u dhaxeeya labada ummadood iyo labada dal intaba wasiirka gaashaandhigga qaabilsan xiriirka baarlamaanka mudane Cali Xasan Bahdoon oo soo kulankaasi kadib aan wareysi la yeelanay waxa uu ka xog waramay qodobada kulankaasi lagu soo qaaday waxaana uu wasiirku senator ay kumantan Djibouti waxay tusay saamba ay adkeynaysaa xiriir ka dhaxeeya Djibouti iyo Faransiiska oo ah xiriir taariikhi ah oo maanta aad moodis inuu soo yeelanayo waji kale oo cusub oo ku soo biiray xiriir dhaqaale senatoradu waxay soo ziyaarinayaan askartooda laazim laakiin kol waxa jirta in ay ku tali jiraan inay arkaan siyaasiyiinta iyo khaasan dadka mushtarkiga ganacsatada Faransiiska iyo Djibouti in maalgelin ay ka hadlayaan waxay tahay arin muujinaysa xiriirka Djibouti iyo Faransiiska soo xoojinay daawadayaal waxa caawa khadka telefoonka si toos ah inoogu jira wariye Axmed Xumad oo ka tirsan wariyeyaasha iyagu madaxweynaha jamhuuriyadda socdaalka ku weheliyay kana qayb qaadanaya shir madaxeedka wadamada Afrika ee caasimadda Kigali ka furmaya kaasi oo looga hadlayo wax isweydaarsiga xorta ee suuqa ee kala dhaxeeya qaaradani Afrika iyo wadamada ku buhoobay intaba وريه أحمد حمد منا مقاشة. En prélude à la session. بل إنه غور سيد الوصول دوي مدحوينها جمهورية دا يشين مدحيتك سيد الله إسكو دياريين تبع.
والله فاضل السلام عليكم مدحوينه ما أنت قلت صاغلي مجالد كيجالي كابيتال رواندا دمرك واحد سود ونكو جارد كذا بيجي وزير كأريمها دبي إسكاش عالم محمد علي يوسفي وزير ذكر مؤمن أحمد شيخه وزير ك محكمة فضياء وزير كدقالها محمد حسن إبراهيم بريزاجا شمد كمارس قد يوسف جوالي أي سودي مدحوينها مدحوينه بالرد بسبب الشرطين فقط يقدر يدرج مدحين كود كفر من ماشى مدامين كيجاليه بريزاجا أفريقيا ده تكيد جليان أفريقيا كتن بيجين دريبو فرم دونا فدقنا بوحو كسابسين هاي في مدها أفريقيا لها أفريقيا دان دخلها سن كم شيء ودي لهاين دخلها أفريقيا يبفرنسيردي يصير شغل السعودية هاي بحدود وماذا تفي عصايس كودان وبري لقى حد دونا ده واحد جرا لبي اللي بعتن بروتوكول بالكلا صحيح دونا عدي له هذا بري ومنحمله دي أنت وجوه ما عسلد أكيد يعني فادم aad baad u mahadsan tahay Axmed Xumad ayuu ahaa oo isagoo ku sugan caasimadda Kigali halkaasi uu maalinta bari madaxweynaha jamhuuriyadda kaga qayb galayo shirka madaxda Afrika ee looga hadlayo suuqa wax isweydaarsiga xorta ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano ZLEC haddaba daawade waxaan caawa aan kaga falanqoonaynaa warkayga waa abaalmarinta madaxweynaha jamhuuriyadda lagu abaalmarinayo arrimaha ku aadan xagga dalxiiska haddaba abaalmarintaasi waxa faahfaahin dheeriya inaga siinaya wariye Khadar Cabdilaahi aad baad u mahadsan tahay Faadmo guddiga dalxiiska ee Yurub ayaa sanadkan 2018 uu aqoonsaday mudane Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha jamhuuriyadda hogaamiyaha sida dhabta uga shaqeeyay horumarinta iyo kobcinta dalxiiska guud ahaan iyo jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan hogaamintiisa milgan ee kaga aadan horowdhiga dalxiiska jamhuuriyadda Djibouti bay warbixintu ay xustay xafiiska gudoomiyaha golaha Yurub ee dalxiiska iyo ganacsiga ayaa si rasmi ugu dhawaaqay in uu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle loo calaamad saaray sanadkan 2018 hogaamiyaha aragtida dheer leh ee si dhab ah uga shaqeeyay kobcinta dalxiiska dunida oo dhan isagoo oo ah xubin ka mid ah akademiga Yurub ee dalxiiska oo si rasmi ah u aqoonsaday qiimeeyay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle doorkiisa iyo ahmiyadda uu siiyo waaxda dalxiiska waxaana uu noqday madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle hogaamiyaha sanadkan 2018 helay abaalmarinta caalamiga ee dalxiiska ee loogu talagalay madaxda adduunka haddaba isweydiin waxay tahay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle muxuu ku mutaystay abaalmarintani lagu qiimeeyay waxqabadkiisa waaxda dalxiiska warbixintu waxay xustay dhowr arrimood oo muhiim ah oo ay ka mid tahay dib u hawlgelinta shirkadda dayuuradaha ee Air Djibouti oo kaalin weyn oo lixaad la ka qayb galaysa kobcinta dalxiiska jamhuuriyadda Djibouti waxa kale oo warbixintu ay xustay dadaalada kala duwan ee dhismayaasha kaabayaasha dhaqaale iyo dib u habeynta ballaaran ee xukuumaddu samaysay ee ku aadan sidii loo soo jiidan lahaa maalqabeennada waxa kale oo warbixintu hoosta ka xariiqday in shirkadda dayuuradaha Air Djibouti ay sahaminayso in khadad cusub ay furto sanadkan 2018 oo qaaradaha Yurub iyo Asia intaba ah waxaana shirkaddu ku tala jirtaa in ilaa iyo 200 oo kun oo rakaab ah sanadkiiba ay suuro geliso waxa kale oo warbixintu ay xustay oo qiimeyntaasi lagu sameeyay dhinaca fiisaha ama fiisooyinka dalku galka ah oo jamhuuriyadda Djibouti ay tahay mid kamid ah wadamada ugu wanaagsan ee fudaydiya dadka dalxiiska sidii ay u soo beegsan lahaayeen dalkeena waxa ay warbixintu lagu sheegay in jamhuuriyadda Djibouti qiimeyn la sameeyay la sheegay inay tahay wadanka labaad ee dadka dalxiiska u fudaydiya in ay dalka si habsami leh oo fudud oo procedure ama hanaan dheer aanan gelin balse loo fudaydiyo dadka dalxiiska ku imanaya jamhuuriyadda Djibouti warbixintu waxa kale oo ay xustay nabadgelyada oo jamhuuriyadda Djibouti tahay wadamada adduunka ugu wanaagsan xagga nabadgelyada oo dadka dalxiisayaasha ay ku qabaan niyad samaan iyo waliba qalbi ay ku aaminsan yihiin in deganaansho ay ka jirto jamhuuriyadda Djibouti xilliga ay dalxiiska ay yihiin waxa kale oo warbixintu ay xustay in jamhuuriyadda Djibouti ay ku tallaabsatay in ay dhowrto goobaha dalxiiska loogu talagalay ee dabiiciga ama qadiimiga xafiiska madaxweynaha golaha Yurub ee dalxiiska iyo ganacsiga fadhigiisu yahay magaalada Brussels ee xarunta wadanka Belgium ayaa lagaga dhawaaqay warbixintan in madaxweynaha
jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele loo caleema saaray hogaamiyaha dunida ee dalxiiska xubinna ka ah Akademiga Yurub ee dalxiiska. warqadan oo rasmi ah oo qalinka uu ku duugay gudoomiyaha golaha Yurub ee dalxiiska iyo ganacsiga waxay ku dhiirigelinaysaa mas'uuliyiinta jamhuuriyadda Jabuuti in ay ku dhiiradaan kuna sii socdaan dhabaha horumarka iyo kobcinta dalxiiska iyo istaraatiijiyadaha hoos u dhigida saboolnimada. gudoomiyaha golaha Yurub ee dalxiiska iyo ganacsiga waxa uu yiri waan soo xiganaynaa maanta dawladda Jabuuti waxay garoosatay muhiimadda uu leeyahay dalxiisku oo ah fudaydiyaha ama furaha horumarinta dalka iyo soo jiidashada caalamka iyadoo dawladdu maalgashi ku sameysay kaabayaasha iyo kordhinta awoodaha abuuritaanka koox gaar ah oo hogaankaaga mudane madaxweyne ah oo ka shaqeeya horumarinta iyo maareynta meelaha dabiiciga iyo dhaxalgalka taariikhiga ee dalka si loo kobciyo dalxiiska. warqadan oo ay saxeexeen madaxweynaha golaha Yurub ee dalxiiska iyo ganacsiga Professor Anton Karege iyo agaasimaha Akademiga Yurub waxay ku amaaneen jamhuuriyadda Jabuuti isbedelada muuqda ee ka hana qaaday ee horumarinta dalxiiska oo ah mid kamid ah albaabada ugu waaweyn ee horumarinta iyo la dagaalanka saboolnimada. agaasimaha Akademiga Yurub ee dalxiiska waxa uu yiri mudane madaxweyne hogaamintaadu waxay suuro gelisay meelmarinta istaraatiijiyadda hoos u dhigida saboolnimada taasi oo si weyn ku dhigan yoolka Jabuuti ee sanadka 2035 ee kobcinta dhaqaalaha shaqo abuurka iyo wax ka qabashada saboolnimada. shaqada aad qabatay wili waxay maanta keentay inaan xusno in Jabuuti tahay caasimadda caalamka ee dhaqanka iyo dalxiiska oo jamhuuriyadda Jabuuti loo aqoonsaday. sida ay ku waramayso warbixintii ugu dambeysay ee Banka Adduunka ee ku lug leh dhaqaalaha caalamka waxay u aqoonsatay in hogaaminta mudane Ismaaciil Cumar Geele madaxweynaha jamhuuriyadda ay u suuro gelisay in dalka Jabuuti uu ka mid noqdo 5 dal ee dhaqaalahoodu uu xawliga ku socdo sanadkan 2018 baa lagu sheegay warbixin